xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta kalfadhigoodii koowaad kulankiisii afraad ku yeesheen magaalada Jowhar. kulanka maanta xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ay ku yeesheen xaruntooda waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed. ajandaha kulanka maanta ayaana ahaa ansixinta guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. inta uusan magacaabin ayaa ajandaha waxaa faahfaahiyay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed. waxaad ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina ajandahan maanta kalfadhigan aan ku ansixinayno guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. tirada kasoo qayb gashay ee xildhibaanada waa 74. guddigii hore annagoo u aragnay inuu ku yahay munaasab guda karana waajibaadkii loo igmaday waan soo celinay annagoo u garanay in ay gudan karaan waajibaadkooda isbeddelna uusan waxba taraynin mar haddii ay tahay shaqada muhiimadeeda in la fuliyo. waa 9 xubnood oo aan isleenahay way ka soo bixi karaan shaqada adag ee nagu soo wajahan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba. waxaan ansixin doonaa marka guddiga oo 9 xubnood ka koobnaa. waxaan gacanta ugu taagi doonaa inta rabto oo ogol inay gacanta taagto marka koowaad, marka labaad inta diidan, marka saddexaad inta ka aamustay. waan gudagalaynaa. waxaan ka codsanaynaa nimanka noo tarinaya codadkan isdiyaariyaan. waxaa ogolaaday kulanka ayaa waxaa soo xaadiray 74 xildhibaan. 71 xildhibaan ayaa ogolaatay, 2 xildhibaanna waa ay ka aamuseen, 1 xildhibaanna waa uu diiday. waxaa sidaasi ku dhawaaqay Cabdixakiin Luqmaan, gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee Hirshabelle. waxaa diiday 2 qofood, waxaa ka aamusay 1 qofood. sidaa darteed golaha waa sharci. saacada laga bilaabo hawshiisa ayuu qabsanayaa. saacadan kadib guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay soo saareen jadwalkooda shaqo. qabashada araajida iyo diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa loo asteeyay 8 ilaa 9 November. hadal jeedinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa loo asteeyay 10 November. maalinta doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisana waa 11 November oo maalmo yar ay naga xigaan. warqadda jadwalka waxaa ku saxiixnaa gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xildhibaanad Caaisho Khaliif Xaaji Maxamed. Raaga Xasan Cumar, TV-ga codka bariga Afrika, Jowhar. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. tayo waa Telesom.